Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan noo socday casharadeenii taxanaha ee first aid-ka. Waxaan ka hadlaynaa first aid management of bleeding. Waa gargaarka degdega ah ee loo muujiyo ama loo sameeyo qofka bukaanka ah ee wax ku dhaceen inta aan la geynin goobta caafimaadka. Haddaba casharkeena waxyaabahan iskula arki doono ama ku kofargareyn doono waxaa ka mid ah kow inaan qeexno bleeding muxuu yahay, dhiigbax maxaa la yidhaahdaa, sidoo kale aan qeexno it is steps qaybihiisa. Number 2 waxaan ogaan doonaa signs-ka severe bleeding, calaamadaha lagu garto dhiigbaxa daran. Qofku markuu dhiigbax daran ku dhaco muxuu calaamado oo soo muujiyaa. Number 3 waxaan arki doonaa how to do first aid measures uu qofka u baahan yahay sidee loo sameeyaa. Iyada haddii tahay external iyo internal bleeding labadaba. Yacni first aid-ka nooca uu kaaga baahan yahay qofka dhiigbaxaya maxay noqon doontaa, maxaa u sameyn doonaa casharka dhexdiisa. Iyo sidoo kale marka uu qofku u baahdo in la geeyo goob caafimaad, goormuu u baahan yahay qofkan dhiigbaxaya in la geeyo. Qaybta koowaad introduction, waxaan isla arki doonaa definition-ka. Bleeding maxaa la yidhaahdaa. Bleeding iyo hemorrhage waa same word, laakiin bleeding inta badan waa maxay, waa general word oo like ah English word, waa erey English ah oo common ah oo dadka dhan yaqaana. Laakiin hemorrhage waa terminology-ga caafimaadka ee loo yaqaano dhiigbax markuu qof ku dhaco aan adeegsano. Is the loss of blood from blood vessel due to injury or disease. Bleeding marka la dhaho ama dhiigbax waa maxay macnahan maxay noqonaysaa, waa inuu dhumo dhiiggii qofka ku jiray uu dhumo isagoo kasoo baxaya xididada dhiigga. Maxaa sababa marka dhiigga inuu xididada dhiigga kasoo baxo? Waxaa sababi kara dhaawaca qofka gaaray ama waxaa sababi kara xanuun qofka ku dhacay. Tusaale ahaan xanuunka oo kale muxuu noqon karaa, xanuunka tusaale ahaan usoo qaadanoo kale internal bleeding oo kale waxaa sababi kara oo kale xanuunada peptic ulcer oo kale ulcerka ama nabarka qofka calooshiisa ku samaysmo oo kale wuxuu sababi karaa bleeding internal ah qofka inuu sameeyo. It can be wuxuu noqon karaa bleedingkaasi ama dhiigbaxaasi external mid banaanka. Kan externalka ah marka maxaa lagu gartaa, waa visible outside the body way. Visible waa shay muuqda, waa shay aad indhahaaga ku arki kartid. Tusaale ahaan qofka dhaawac baa gacanta kasoo gaaray, madaxuu kasoo gaaray, lugtuu kasoo gaaray, waa shay visible oo indhahaaga ku arki kartid. Mase wuxuu noqon karaa internal oo inside body cavities, mid internal oo gudaha ah, waa dhiigbax gudaha jirka ka jira oo aadan banaanka ka arkayn, laakiin qofku wuxuu soo muujin doonaa calaamado gooniya oo lagu garto ayaa jira. Marka inside body cavities ayuu kaas ku socdaa, waa dhiig ku socda cavity-yada iyo godadka jirka uu gudaha ku leeyahay. Tusaale ahaan abdominal cavity, pelvic cavity, thoracic cavity, cavity-yada iyo gudaha qaybahaas godadka oo jirka uu gudaha ku leeyahay ayuu dhiiggaas ku socdaa. Severe bleeding can lead to shock. Marka qofkii hadduu saaid u dhiigbaxo ama dhiigbaxaas ama laga qaban wuxuu sababi karaa qofkii inuu aado xaalad loo yaqaano shock ama wuxuu sababi karaa dhimasho. Waa goorma if not controlled quickly, haddii aan loo controlin ama aan loo joojin dhiiggaas si dhaqso ah. Yacni qofku markii uu dhaawac soo gaaro ama xaalad kaloo dhiigbax ku keenta ay ku timaado wuxuu u baahan yahay first aid ama gargaar degdeg ah oo dhaqso ah in loo sameeyo dhiigga haddii laga joojiyo. Haddii la joojin waayo maxaa imaanaya marka? Waxaa imaanaya xaalad shock qofka inuu galo kadibna death ay timaado, dhimasho ay timaado meesha. Haddaba classification of bleeding inta badan markii aynu halkan joogno oo kale classification kuma sii dheeraanayno laakiin laba classification baa soo qaadanaynaa. Kow classificationka koowaad waa according to type of vessel, annagoo u fiirinayna xididka dhiigga uu ka imaanayo, which vessel buu dhiiggani ka imaanaya. يعني artery baa xididada inta badan waxaan naqaanaa saddexdaa xidid oo commonka inay ka kooban yihiin xididada jirku, ama waa artery ama waa vein ama capillary. Capillary-ga markuu kuwa yaryar weeye, ayagu artery-guna waa naqaanaa waa xididada dhiigga wadnaha ka qaada ee jirka qaybihiisa u qaybiya. Vein-kuna waa ka soo celiya meelo yaryar ma ogiye jirka inta kale waxaa dhiigga gaarsiiye artery-ga gaarsiiye, vein-kuna wuu soo celiya haritaan ku sameeya. Capillary-guna connection bay sameeyaan. So arterial bleeding haddaba dhiiggu markuu artery ka yimaado ama qofkan xididka go'an inuu artery yahay maxaa lagu gartaa. Calaamada lagu garto oo ugu muhiimsan horta dhiiggaasi waa dhiig aad u ifaya, bright red, waa dhiig iftiinkiisa uu siyaado yahay. Sidoo kale spasm with heartbeat, waxaa kaloo marka uu dhiiggani imaanayo pressure gareeyo oo gush out uu sameeyo. Erga yacni spasm macnaheedu waa maxay, waa gush out instead, waa dhiig si dhaqso ah usoo baxaya. Muxuu kusoo baxayaa with pressure, high pressure isagoo ayuu meesha kasoo baxay. Tusaale ahaan qofka gacantoo kale wax ka jareen, haddii qofka artery oo kale uu tusaale ahaan xaalka ayoo kale
radial artery oo kala qofkan go'ay oo kale waxaas wuxuu sameynaya arterigu in dhiiggiisu uu cadaadis siyaada ku soo baxo waliba wuxuu u badan yahay in uu aado masaafo ka fog meesha qofku joogo yacni kor oo kale inuu aado venus balaadku wuu ka duwan yahay kaas kow kalar ahaan waa red waa dark color baa u wadaa waa kalar madow ah waa kalar mugdi ah sidoo kale socodkiisuna waa steady flow waa socod gaaban waa socod degan yacni wuxuu ka degan yahay socodkii hore oo arterial balaadka ama arterial bleedingka waxaan dhahnay waa bleeding si siyaada u socdo waa bleeding cadaadis siyaada ah ku soo baxaya oo xididka kaga soo baxaya laakiin venusku wuu ka duwan yahay oo wuxuu u socdaa si degan yacni si ka bareshar iyo cadaadis hooseysa sidii u socdo kii arterigu u socday okay kalar ahaan labadooda maxaa kala duway waa isweydiin karnaa inta badan kama bixinayno sharaxaad dheer laakiin arterial balaadku wuxuu bright red u yahay waa dhiig oxygenated ah waa dhiig oxygenku ay ku badan tahay wataan dhahnay arterigu inta badan wadnaha ayuu dhiigga ka qaadaa wuxuuna geeyaa jirka qaybihiisa kale halka venuska uu wado ama veinka uu wado dhiig oxygenated ah dhiig aan wax oxygen ah lahayn ayuu wadaa waana sababta uu dhiig u yahay dark color uu yahay capillary-gu asagu muxuu sameeyaa capillary-gu dhiiggiisu wuxuu sameeyaa ama bleedingka capillary-gu waa xididada yaryar ee qofku markuu wax yar oo kale meel yar wax ka saraan oo kale bleedingka yar uusinka wax yar uusinka ah oo kale uusinka waxaa la dhahaa yacni socod caadi ah lama dhihi karo weeye uusinku waa wax yar oo meel ka soo baxaya waa bleeding yar oo si tartiib ah meesha uga soo baxayso uusis slowly ku sameeya kaasaa waxaa loo yaqaanaa uusin sawirkan marka wuxuu ina tusayaa qaybaha wuxuu ina tusayaa sawirkan wuxuu ina tusayaa qaybtan oo kale arterial bleedingka wuxuu ina tusayaa arterial bleedingku waxaa dhahnay wuxuu ku soo baxayaa cadaadis siyaadaha uu ku soo baxaya spotting blood way pulsating flow bright red color kala ahaana waa dhiig aad u guduudan marka loo eego venous bloodka marka loo eego soo qaabka u socdana waa qaab cadaadisa yacni hadda waxaan soo sheegay inuu masaafo kore uu inta badan uu aado arterigu sababtaas waxaa sababaya bombinka uu wadnuhu sameynayo uu dhiigga soo bombi kareenayo kan waa venous bloodka ama dhiigga ka imaanaya veinka weeye asagu waa slow flow sidoo kale kalar ahaana waa dark color how about capillaries capillariesku ayagu waa slow weeye aad ayuu u gaabiyaa waa dhiig yaroo hoose tartiib uusin u sameynaya si tartiib ah meesha qofka dilaacday uga soo dareeraya okay kii hore waxaan usoo sheegnay according to the blood vesselka go'ay qofka yacni ma artery baa qofkan go'ay ma vein baa go'ay ma capillary baa go'ay markaan fiirinayno oo dhiig uu ka imaanaya markaan fiirino ayaa saddexdaa u kala saarayna according to locationka ama meesha dhiig wuxuu ka imaanayo marka loo fiirinayo labaa loo kala saaraa waxaa loo kala saaraa external bleeding iyo internal bleeding external bleeding waxaa la yidhaahdaa dhiigbax banaanka ah internal bleedingna dhiigbax gudaha ah external bleedingku haddaba waa dhiig visible ah waa dhiig la arki karo outside the body jirka banaankiisa dhiig laga arko tusaalahaan qof gacanta nabar ka soo gaaro oo kale qof wejigoo kale nabar ka soo gaaro oo kale waa dhiigbax banaanka ah oo indhahaaga ku arki kartid internal bleedingku hiding inside the body cavities wuxuu ku qarsoon yahay jirka gudihiisa godadka jirka uu leeyahay iyo dhiigbaxaasi ku jira oo indhahaaga kuma arki kartid laakiin qofku wuxuu soo muujiyaa calaamado muujinaya internal bleeding signs and symptoms of severe bleeding haddaba calaamadaha soo muuqda ama calaamadaha qofka uu soo muujiyo marka uu dhiig baxo kow balsaha qofka ama heart rate-ka qofka ayaa wuxuu noqdaa rapid yacni wuxuu noqdaa mid degdegaya weak balsa ah sidoo kale qofka kalar ahaan inuu sometimes waxaa la arkaa qofku kalar change laakiin kalar change-gu common ma cold skin baa arkaa calaamadahan qaybo ka mid a waxay tusinayaan qofka marka uu dhiig baxo haddii severe bleeding uu jiro inaa qofkaasi shoog uu kaaga sii socdo so shooga wuu kusii sharxi doonaa calaamadahan cold skinka qofka ama jirka qofka inuu noqdo mid qabow gaar ahaan cagaha qaybta peripheralka oo kale cagaha iyo gacmaha kale qofka inuu qabow uu ka dareemo kale restlessness qofku raax darro ama deganaansho la-aan inuu dareemo rapid breathingkiisa iyo neefsashada qofka oo degdegta sidoo kale waxaa calaamada oo lagu arkaa qofka pressurekiisa oo hoos u dhaca iyo visible large blood loss in aad aragtid dhiig tiro badan oo qofka ka dhumay haddaba first aid steps for external bleedingka internal bleedingka isaga gaar goonidiisa weeye laakiin waxaa xooga saari doonaa first aid stepska loo sameeyo haddii aynu aragno external bleeding
ama dhiigbax banaanka ah. Horta marka koowaad qodobka koowaad oo samaynayso markaad aragtid qof dhiigbaxaya tusaale ahaan meel shil ka dhacay oo kale qof shilkoo kale ku dhaawacmay qofkoo kale midi baa lagu dhuftay wax kale wixii la doonana lagu dhufto meel buu kasoo dhacay yani qofkuu dhiigbaxaya waxaad hubinaysaa ensure safetyga deegaanka waa inuu yahay safe meesha aad qofka ku caawinaysaa waa inay tahay meel safe yani waa inaad adigu safety heli karaa tusaale ahaan dad adigii yani aad nabad qabin oo meesha qofka wixii qofka dhibayba ay meesha yaalaan yani inaad qofka ku qabataa waa adkaanaysaa tusaale ahaan oo kale qofka qof baa dilay qofkii dilay meeshii uu jooga adina waad ku cabsanaysaa waxay noqonaysaa inuu adigu ku dilo haddaad meesha tagtid oo qofka aad damacdo inaad first aid u samaysid so environmentiga ama meesha qofka aad ku caawinaysid waa number one inay tahay meel safe ah ama meel ammaan ah hadday noqoto qofkii dhibka qofka u geystay inay ammaanka ahaato ama dhibka meesha ka dhacay inay ammaanka ahaato iyo hadday tahay meesha dhib ka dhacay waqtigeeda hadday tahay xitaa adhiga karta sometimes inuusan qof ahayn wuxuu gas qofkoo kale buubaa ku dhaxdoo kale yani shay meesha yaallo kale qofku dhibka kala kulmi karaa so stepkaas waxaa ugu dheeraaday safetygaagu waa number one qodobka labaad exposed wound qofka isagoo dhiigbaxaya tusaale ahaan gacantoo kale nabar ka soo gaaray gacanta meesha nabarkii uu ka gaaray oo dhiigbaxaysa malaa ka koraysa qofku maruu meesha ka wataa marada meesha uu ka wato waxaa samaynaysaa inaad marada exposure ku samaysid oo marada ka qaad qodobka saddexaad apply direct pressure with clean cloth waxaa samaynaysaa markaad meesha marada ka faydid inaad ku apply garayso oo ku qabatid direct pressure with clean cloth adoo adeegsanaya mara nadiifa tusaale ahaan mara yar baa haysataa ama qofka maradiisii oo kalead adeegsan kartaa waxaa samayn kartaa marada markaad ku qabanaysid waa inaad marada thicknesskeeda badisaa marada thicknesskeeda badinaysaa kadibna meesha dhiigbaxaysa ee aad expose ku samaysayd marada ka qaaday ayaad saaraysaa xoog ayaad ugu qabanaysaa inta dhiigu uu qofka joogsanayo sometimes marka waxaa la sameeyaa haddii aad heli kartid marada meesha aad saadho oo thicknesskeeda aad badiso meesha aad ku qabatay mara kale oo like bandage camal ah ugu dul xirta haddaad heli kartid taasaa la sameeyaa haddaad heli karin waxaad ku khasban tahay inaad pressurekaas ku cadaadiso oo gacantaada kula haysid qodobka afraad elevate the injured limb waa inaad elevation ku samaysaa oo kor u qaadaa injured limbiga ama lugta ama gacanta oo meesha qofku uu ka dhaawacan yahay waa haddii limbiska ay tahay meesha dhaawac laakiin ayadana waxaa jirta marar aan la ogolayn ina elevation waxaa loo yaqaanaa gacanta inaad jir ka kormarisid ama lugta inaad jir ka kormarisid ba elevation loo yaqaanaa marka sababo badan oo imaan doono gadaal aan ka arki doono waxaa jira aan la ogolayn gacanta inaad kor u qaadid ama lugta inaad kor u qaadid aan la ogolayn haddii uu qofku dhiig baxayo qodobka shanaad apply bandage hadday waxaan soo sheegnay qodobkan apply direct pressure with clean cloth marka aan joognay direct pressureka markaa saartid oo marada thicknesskeeda badisay ama goos hadday heli kartoo kale inta badan dadka first aid u tababaran waxay wataan goos iyo qalab loogu talagalay inta badan qaataan laakiin anaga wadankeena oo kale ma jirto inaadan helin bay u badan tahay marka haddii aad helayso markaad saarto marada thicknesskeeda badiso qofka aad ku qabatid waa kanaa sawirkaan oo kale saan oo kale u qabanaysaa tusaale ahaan goosku hadda qofkaan oo kale haystaa gooska oo kale ku qabanaysaa bandageka waxaa loo yaqaanaa faashada ama tan lagu marmaro ama qofku markuu jabo oo kale tan lagu duubo oo kale inta badan bandage baa la dhahaa laakiin waxaan u malaya soomaali ahaan faashada inay noqonayso laakiin gooska iyo iyada waxaa faashada inay isla noqonaysa saan jeclay kan marka waa gooskii waa kii meesha lagu cadaadinayay weliba waxaa la rabaa dhowr xabo oo kale haddaa heli kartid hal xabo laba xabo saddex xabo wax ma celinaysid haddaad heli karto boos fiican inaad badisid islamarkaasna aad meesha ku qabatid kadibna bandageka aad ku duubtid bandagin aad u samaysid so apply bandage markaad ku samaysid oo bandageka aad ku duubtid ayaad waxaa samayn doontaa in elevationka markaa kadib aa la sameeya if bleeding continuous apply a tourniquet qodobkii koowaad ayaan dhiiga ku joojinaynay marka laga soo tago labadan qodob oo ah inaad environmentiga iska hubiso inuu safe yahay iyo inaad meesha banayso wuxuu ahaa inaad samaysid apply direct pressure samaysid so qodobkan saddexaad iyo qodobkaas shanaad way isla socdaan waa inaad direct pressurena aad samaysid bandagena qofka aad ku samaysid oo qofka bandage aad ku samaysid waxaa xiga marka qodobkan kalaa xiga oo ah inaad markaa xirtid kadib meesha ilaafeed u samaysid oo jirka aad ka kormarisid si aad u joojisid dhiig su u joogsado
if bleeding continues wuu ku dhahay marka haddii dhiig bixi uu sii socdo apply a tourniquet if training ku xir tourniquet haddii aad u tababarata tourniquet waxaa la dhahaa xariga yar ee qofka marka la durayo ama kaanoolaha lagu xirayo gacanta lagu xiraa tourniquetku inta badan ama siribda ama xarig gacanta lagu xiro xarigaas ayaad ku xiri doontaa waa goorma waa haddii direct pressurekii iyo bandagingkii marka isugu dartay iyo elevationkii uu dhiigkii weli kaa joogsan waayo oo uu yahay mid socda saasaad samayn doontaa haddaba qofkan intaana ka bixin tourniquetka xariga aad ka dhigaysaa ama xariga qofka aad ku xiraysaa horta kow waxaa laga xiraa meel 5 sentimitir ka koreysa meesha dhiig baxaysa waa inaad ka xirtid waa qodobka labaad xariga aad ku xiraysaa waa inuusan ahayn xarig samaysan ama xargaha uuban oo kale sida xariga dharka lagu warto oo kale fiilada oo kale xargaha yaryar ee laysku sameeyo xarigaas haddii jirka lagu xiro oo in door ah loo daayo cabaar haddii loo daayo wuxuu samayn doonaa cell injury buu samayn doonaa seelasha jirka ayuu dhaawici doonaa yani nerve injury oo kale inuu sameeyo ayaa dhici karta so xariga lagu xirayaa waa xarig waa inuu noqdaa baliciisu uu fiican yahay xarig ballaaran oo kale maro oo kale xarig waxaa la dhahaa at least waa inuu ahadaa 2.5 centimeter oo kale xariga baliciisu waa inuu intaa dhan yahay baa la yidhaahdaa mar walba haddii mid ka ballaaran aad heli kartid way kasii fiican tahay oo tourniquet ka dhigatid intaa kadib wuxuu ku yidhaha seek medical help immediately waa inaad u geysaa qofkaas goob caafimaad sida ugu dhaqsiyaha badan si qofka dhiigga looga joojiyo oo wax loogu qabto adigu shaqada qabanaysa maxay ahayd shaqada qabanaysa waa shaqadii first aiderka waa shaqadii qofka gargaar degdeg ah qofka gargaarka degdega inuu bixiyo loo tababaray ayaad soo qabtay goobta caafimaadna waxaad u geynaysaa wixii intaa kasii dheeraya ee qofkan bukaankahay u baahan yahay in loo sameeyo so habkan hore baan u sharaxnay waa habka direct pressureka loo sameeyo okay haddaba internal bleeding haddaad ka shakisan tahay qofkan inuu internal bleeding tusaale ahaan oo kale qofku meel koro kasoo dhacay oo kale dabaq koro kale kasoo dhacay waxaad ka shakisan tahay qofkan oo kale inuu injury ama dhaawac gaar internal bleeding uu leeyahay waxyaabaha laga rabo is first aid ahaan inaad samaysid waxaa kamid ah kow afka inaad wax ka sin cunto iyo cabitaan midna hasiin sidoo kale inaad u jiifisid flat position flat yani inaad qofka qaab flat siman u jiifisid qodobka saddexaad cover with blanket waa inaad ku dahaartaa ama ku dabooshid blanket buste ama maro kaloo culus waxaad heli karto kale sidoo kale wuxuu ku yidhaahday monitor stand blanket maxaa ugu dahaaraysaa saa u ilaaliso qofkan hypothermia yani inuu noqdo qofkan inuu dhaco hypothermia yani qofka inuu dhaco temperaturkiisa inuu hoos u dhaco kale monitor breathing and pulse sidoo kale waa inaad monitor garaysaa breathingka qofka adoo cabiraya respiratory rateka iyo sidoo kale baalsaha qofka adoo cabiraya pulse rateka si emergency help immediately sidoo kale waa inaad geysaa xarun caafimaad sida ugu dhaqsiyaha badan inaad u geysid haddaba shoog qofka inuu kaa galo sidee ayaad uga hortegi kartaa qofkan dhigbaxaya inta aad usii wado goobta caafimaadka waa inaad ku hortagtid inuu kaa galo xaalad fooqa kow waxaad samaynaysaa qofka inaad u seexisid si falaadka si siman qaab siman inaad u seexisid qodobka labaad elevate legs if safe muxuu hadda inoogu daro wuxuu inoogu daray waxaa jirta mararka qaarkood aan lagaa ogolan ina elevation lugaha ku samayso tusaale ahaan fracture baa jira lugta waa jaban tahay lugta hadday jaban tahay mar waxaa jira elevationka la ogol yahay oo ah jabkaas inaad xirtay oo qaabka loo xiro aad taqaanid haddii aad aqoon qaabka loo xiro ama aad jabkaas xirinin lugkaas elevation ma samayn kartid sidoo kale qofka haddii dhabarka uu ka qabo kale ama dhabarka jabka soo gaaro oo kale haddii lafaha belfiga ama lafaha simaha uu ka jaban yahay oo kale lama ogola qofkaas inaad lugtiisa kor u qaad sidoo kale keep warm qofka inaad ka dhigtaa mid diiran sidoo uga dhigaysaa wixii aad heli karto oo maraa ee qofkaas ku dadaysa stay calm and reassure the person waxaa lagaa rabaa qofka inaad dejiso tusaale ahaan qofku markii uu jugta soo gaarto ama shilka uu galo kale inta badan waa qof naxsan oo ku naxsan shilki gaaray iyo sida ay u gaareen iyo dhiigbixii waxaa laga yaabaa qofku inuu ku jiro xaalad halhal ah qofka marka waxaa lagaa rabaa inaad dejisid oo u sheegtid xaaladiisu hadda inay fiican tahay u fiicnaan doono ooba caafimaad loo wado aad xaaladiisa inaad dejisid baa lagaa rabaa okay haddaba summary aan samayno wixii aan soo qabano o dhan aan soo summarize garayno kow qodobka koowaad first aider markaa tahay lagaa rabo qofka dhiigbaxaya inaad u sameysid gaar ahaan external bleedingka waa inaad hubisaa horta environmentiga meesha aan gelayo qofka ku caawinay meel safe ah ma tahay waa number one qodobka labaad apply pressure waa inaad pressure saartaa meesha dhiigbaxaysa qodobka saddexaad oo ah elevate limb
nimbi hadday tahay gacan ama lug meesha dhiigbaxaysa waa in dilatation ku sameeya. Qodobka afraad bandage inaad ku samaysid marka aad pressureka saartid oo meeshaad garaysid waxaad ku duubi doontaa bandage ku duubi doontaa. Qodobka shanaad prevent shock waa inaad samaysaa. Shocka waa inaad ka hortagtaa. Shocka sidee uga hortagayna hadaaye waa anaga soo aragna waa kan prevention of shock. Qodobadaas ayaad u samaynaysaa qofka saa uga hortagtid in bukaanku uu shock kaa galo. Qodobka u dambeeya safe medical care waa inaad geysaa qofkaas xarunta caafimaad ee kuugu dhow ee qofka bukaanka wax loogu qaban karo. Wabillahi tawfiiq.